ra'iisul wasaarihii saddexaad ee sanadkan geeriyooda waxa uu ahaa allaha u naxariistay Cali Khaliif Gallay magaalada Jigjiga ee ismaamulka dalka Itoobiya ayuu ku geeriyooday bishii Oktoobar 8 inkasta oo mas'uuliyiinta dawladda deegaanka iyo dawladda federaalka Soomaaliya ay sheegeen baadhis ay sameeyeen inuu u dhintay fayraska corona haddana ehelkiisu waxay xilligaas BBC-da u sheegeen inaanay rumaysnayn inuu xanuunkaasi u dhintay Cali Khaliif waxa uu jiray da'da 78 sano waxa uu ku dhashay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool 15 bishii Oktoobar ee sanadkii 1941 halkaas oo ku soo qaatay qaybihii hore ee noloshiisii dhalaannimo iyo waxbarashadiisii asaasiga ahayd dugsiga sare waxa uu degmada Sheekh ku dhamaystay sanadkii 1922 heerka aqoonta maadiga waxa uu qaybo kamid ah ku soo qaatay jaamacadda dibadda ku yaala wuxuuna ka gaadhay ilaa darajada PhD wuxuuna bare ka noqday qaar kamid ah jaamacadihii Soomaaliya 1963 Gallay wuxuu helay deeq waxbarasho ay siisay jaamacadda Boston ee dalka Mareykanka wuxuu shahaadada heerka koobaad ee maadada sayniska siyaasadda kaga qalin jabiyay sanadkii 1965 1967 ilaa 69 wuxuu shahaadada heerka labaad ka qaatay jaamacadda Syracuse ee magaalada New York Mareykanka shahaadadaas wuxuu diiradda ku saaray cilmiga maamulka dadweynaha wuxuuna ku soo baxay dhammaan shuruudihii looga baahnaa inuu professor ku noqdo intii u dhaxaysay 1982 ilaa 1987 wuxuu waxbarasho ku qaadanayay Machadka Weatherhead ee lagu barto aqoonta arrimaha dibadda iyo jaamacadda Harvard ee dalka Mareykanka intii u dhaxaysay 1974 ilaa 1976 waxa uu agaasime ka ahaa mashruucii sonkorta ee Jowhar 1976 ilaa 1982 wuxuu maamulayay mashruucii sonkorta ee Juba Cali Khaliif waxa uu door weyn ka soo ciyaaray siyaasadda Soomaaliya 10 sano ee la soo dhaafay dhowr sano kadib markii ay Soomaaliya xurriyadda qaadatay ayuu si weyn uga soo dhex muuqday saaxadda siyaasadda 1980 ilaa 82 waxa uu ahaa wasiirkii warshadaha ee dawladdii kacaanka ee uu madaxweynaha ka ahaa Maxamed Siyaad Barre kahor inta aan loo magacaabin xilka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya sanadkii 2000 wuxuu noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaankii lagu yeegleelay shirkii Carta 13 bilood markii ay dhisnayd xukuumaddii uu ra'iisul wasaaraha ka ahaa xildhibaanada baarlamaanka ee xilligaas ayaa kala noqday codka kalsoonida 20 bishii Agosto ee sanadkii 2012 Cali Khaliif waxa uu ka mid ahaa xildhibaanadii loo doortay baarlamaankii federaalka Soomaaliya sanadkii 2014 Cali Khaliif waxa loo doortay madaxweynihii maamulka la magac baxay Khaatumo ee gobolada Sool iyo Sanaag doorashadii dhacday bishii Agost ee sanadkaas ayuu uga guuleystay Maxamed Yuusuf Jaamac Indhasheel oo ahaa musharaxii kula tartamayay xilka madaxweynaha Khaatumo in muddo ayuu ololeeyay in maamulkaasi aqoonsi uu ka helo dawladihii kala dambeeyay ee tan iyo xilligaas soo maray Soomaaliya hase yeeshee ay suura gelin bishii Oktoobar ee sanadkii 2017 Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo oo xilligaas ahaa madaxweynaha Soomaaliland iyo Dr. Cali Khaliif Gallay oo ahaa madaxweynaha maamulka Khaatumo ayaa magaalada Caynaba ku kala saxeexday heshiis ku yimi wada hadallo labada dhinac u soo socday muddo 2 sano ah oo ka kala dhacay dalalka Itoobiya, Imaaraadka iyo Djibouti waxaana muddooyinkii dambe uu joogay magaalada Hargeysa isagoo u joogay hirgelinta heshiiskii ay wada lahaayeen Soomaaliland Cali Khaliif allaha u naxariistay waxa muddooyinkii dambe uu Hargeysa ku sugnaa ay asxaabta ay isku dhawaayeen kamid ahaa Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo ayba ka wada bilaabeen Soomaaliland barnaamij wacyigelin ah oo lagu marayay gobolada oo dhan Axmed waxaan weydiiyay balse kooban taariikhdiisii iyo waxa si gaar ahaaneed loogu xasuusan doono Cali Khaliif Gallay iskuulkii Sheekh ka soo baxay ardayda kuwa ugu wanaagsan oo kamid ahaa dibadna waa kii Mareykan galay loo soo diray scholarship inuu first degree soo qaato uu soo dhamaystay deetana wadanku ku soo noqday shaqooyin badan buu qabtay oo kala sarsareeya ilaa markii dambe waa kii soo gaaray inuu wasiir noqdo dawladdii Maxamed Siyaad Barre ee militariga ahayd Mareykan haddana uu ku soo noqday marka 70-nadii madaxooga ayuu PhD-gii ka soo qaatay jaamacadda la yiraahdo Syracuse University dibadna wadankii waa kii ku soo noqday haddana halkii ka waday dawladda meel sare inuu ka qabto oo hay'ado waaweyn iyo marka taariikha caynkaas ayaan garanayaa Cali anagu waxaanu si dhaba isku baranay markii wadanka uu ka soo baxay ee dawladdii Siyaad Barre uu ka soo orday waa 80-nada madaxoogii marka magaalada Minneapolis iyo St. Paul caasimada ayaan wada deganayn dhowr goor baanu aragnay Cali marka aqoontiisii aad isagu wuxuu bartay cilmiga la yiraahdo public administration ayuu bartay cilmigaasi iyo awoodii uu soo maray experience ka ahayd isagoo meelo badan ka soo shaqeeyay wadanka
shaqadiisa marka waa nasiib xumo aad iyo aad u weyn inuu cali sidaa ku xijaabtay isagoo oo maxaanku idhaahayey waddo wanaagsan ku soo dhaadhacay oo qof ruga cadaaya oo dadka la talin kara noqday inuu waktigiisii sidaa ku dhammaaday aad baanu uga xumaanay laakiin dee intii caqlinahi way garanaysaa wax badan oo wanaagsan iyo fikrado wanaagsan oo geesinimo ay ku jirto oo somalilandna dan u ah ayuu ka tegay oo maanta miiska yaala 10kii bishii Oktoobar ayaa lagu aasay cali magaalada Muqdisho aaska ka horna waxaa janaasadiisa lagaga tukaday xerada Afisyooni waxaana lagu aasay xabaale ku yaala cisbitaalka ay leeyihiin ciidamada xoogga ee Soomaaliya cali khaliif galeyd allaha u naxariistee waxaa si guud ahaan loogu xasuusan doonaa inuu ka mid ahaa siyaasiyiinta Soomaalida ee dhaqanka Soomaaliga iyo aqoonta casriga isku barxa ee kolka ay hadlayaan labadaba adeegsada sida ay ku sifeeyeen dadkii si dhow u yaqaanay 20 bishii tobnaad 2020 shiray isugu yimaadeen golaha baarlamaanka Khaatumo iyo golaha wasiirada maamulka Khaatumo waxay soo saareen qodobada hoos ku qoran waa tacsi inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ilaahay naxariistii jannaha siiyo madaxweynihii maamulka Khaatumo horena uu ahaan jiray ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ilaahay naxariistii jannaha siiyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed tan Khaatumo qoyskiisa xaaskiisa iyo carruurtiisa waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu samir iyo iimaan ka siiyo wada hadalladii maamulka Somaliland iyo maamulka Khaatumo ee socon jiray laga bilaabo maanta waanu hakinay cid nagu meteshaana ma jirto waxaanu ugu baaqaynaa ummadda reer Khaatumo inay isugu yimaadaan shir degdeg ah oo ay kaga tashadaan arrimahooda wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh gudoomiyaha baarlamaanka Khaatumo ayaan weydiiyay su'aal ku saabsanayd sababta keentay inay xilligan u hakiyeen wada hadalladii ay kula jireen Somaliland waxaana uu ku jawaabay waxaanu u hakinay inaanu dib uga tashanno annaga iyo dadkayaguba marka tan oo kala dhacdo waxa la arki jiray in hawlaha Khaatumo halka socda oo madaxweyne ku-xigeenka sii qabto arrimahaas inta way hadasheen oo xukuumaddu soconay hawlaha sharciga iyo dastuurku waa qoran yihiin shirkana annaga ugu baaqnay dadkuna inuu tashi isugu yimaado mid maamula mid golayaasha Khaatumo mid madaxweyne ku-xigeenaya mid bulshada ahba iyo siyaasi mid kastaba inay sii yimaadaan danahoodan ka tashadaan